Assalaamu calaykum. Waa kuma qofka haddii aad isfahantaan aad nolosha ku guuleysatay. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee qofka guusha ka hor joogsada waxaa ka mid ah qofka iyo naftiisa oo aan isku dhinac u wada jeedin iyo qofka oo aan haba yaraatee garanaynin waxa uu dhab ahaan uga rabo noloshan adduunka ee kooban. Ma ogtahay in qofka kaliya ee aad noloshaada oo dhan wada qaadanaysaan uu yahay isla adiga naftaada? Sirta ugu weyn ee uu qofku guul ku gaari karo ayaa ah in ay marka horeba heshiis yihiin isaga iyo naftiisu, isku dhinacna u wada jeedaan. Haddaba ha sugin in dadka kale kugu dhiirigeliyaan hadafyadaada, ha sugin in dadka kale kuu tilmaamaan halkii aad ka bilaabi lahayd. Adigu bilow, kadib waxa aad arki doontaa dadka kale oo kuu sacabtumaya adiga oo aan dalban. Ogsoonow, haddii aad adigu iska bilowdo wax waliba way ku hagaagayaan. Haddiise aad sugto cid kugu dhiirigelisa inaad wax qabsato, weligaa halkaaga ayaad joogi doontaa. Wassalaamu calaykum.